Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena Kobciye. Markii gumaysigu ka kacay dhulka Carabta, waxaa jirtay leydha midowga iyo isku tagga oo ay doonayeen shucuubtii walaalaha ee ku dhaqnaa waddamadaasi oo ay ugu heelanayeen inay yeeshaan dal iyo ciid midaysan si ay u helaan quwad. Haddaba halkan waxaa idinkula wadaagi doonaa isku dayadii waddamada Carabtu ku doonayeen midnimada midowgii Haashimiga ee Carbeed. 14 bishii Februari 1958 ayaa labadii boqortooyo ee Ciraaq iyo Urdun waxay samaysteen midowgii Haashimiga ee Carbeed. Midowgan waxaa sabab u ahaa boqorkii Ciraaq ee Faysal al-Thani iyo boqorkii Urdun Xuseen bin Dilaal oo ay ka soo wada jeedeen qoyska Haashimiyada. Balse markii ciidanka Ciraaq uu xilka ka tuuray boqortooyadii, ayaa taliyihii ciidanka Ciraaq Cabdilkariim al-Qaasim waxa uu ku dhawaaqay inuu midowgaasi ka baxay 16 Julaay 1958, kadib markii uu jirtay 4 bilood oo qura. Jamhuuriyadda Carbeed ee midowday waa midab dhex maray Masar iyo Suuriya. Waxaa kala saxeexday madaxweynihii Masar Jamaal Cabdi Naasir iyo dhigiisii Suuriya Shukri al-Qutaadi. Midowgan waxaa la aasaasay 22 Februari 1958 oo uu ku soo gabagaboobay afgembigii uu hogaaminayay Cabdikariim al-Naxlaawi oo ka dhacay Suuriya 28 Sebtembar 1961. Midowgii Jamhuuriyadda Carabta 1 Sebtembar 1972 ayaa waddamada Masar, Suuriya iyo Liibiya ay isku dayeen inay hirgeliyaan midowgaasi, balse muu hirgelin, waxaana ugu wacnaa khilaafkii u dhexeeyay saddexdii madaxweyne ee xilligaasi: Xaafid al-Asad, Maxamed Anwar al-Saadaat iyo Mucaammar al-Qadaafi. Haddaba waxaynu ku sii siqaynaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. Waxaynu ku soo gabagabayn doonaa midowga ugu dambeeya oo ah midowga Yamanta. Midowgan waxaa ku midoobay Yamantii waqooyi ee uu hogaaminayay madaxweyne Cali Cabdalla Saalax iyo Yamantii koonfureed ee uu horkacayay Cali Saalim. Haddaba 22 May 1990 ayaa labadii madaxweyne ee labada Yamanood midoobeen, waxaanay samaysteen dowladda Yaman, waxaana madaxweyne ka noqday Cali Cabdalla Saalax, halka uu madaxweyne ku-xigeen ka noqday Cali Saalim. Inkasta oo bulshada ku dhaqan Yamanta koonfureed ay aaminsan yihiin in midowgani ku yimid xoog iyo jajab, fadlan taabo like, hana ilaawin subscribe. waanaad ku mahadsantahay daawashadaada fiidiyowan.